بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كان طبعاً كل وذاقنا مدة الصوماليات يدمان دنيا شهر مع الصومالية شركي سادوكتين دوسمراب تو والله قبل لما يدوسمراب تري هي حالة ديس سأل سعطان دوسمراب تو waxaa lagu heshiiyay in bisha August 15keeda la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb 3 si looga heshiiyo hanaan doorasho oo dalku galo madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay Dhuusamareeb 2 balantu waxay ahayd 15 bisha August اللي يسوي مع بقى دوسمريب waxa ka soo qayb galay 15 bisha Agosto balankii ilaa hadda soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha gobolka Banaadir عمر محمد عمر فرش waxaan wali soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb galin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo runtii aan cududaar u sameynayno ama cududaar leh oo xanuunsan intaan ognahay الله عافيان لeenahay dhamaan madaxda oo mahadcelinayna madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah u mahadcelinayna sorry waxa yimid madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid balanta sida ay ahayd waa mahadcelinayna waxaan rabnaa halkaan inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd oo iyagu ay dhinacooda ballanta ka qabteen oo leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taala oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina ma ahan waxaan isleenahay xilli fariimaha wada la soo mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogosha waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalku ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahnaan is leeyahay inaan ka dib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada sidaa darteed halka aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxda Soomaaliyeed waa ka fahmeen waa iska fahmeen Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 waa lagu soo heshiiyay tirina waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanad isu aamada Soomaaliyeed
waxaan ku kalsoonahay ee ka soo baxa dhuusamareeb 3 inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaa karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas arbaan uga baxo runtii waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno si taladuba ay ahayd maantay waxaan noo furmay shirkii wajigiisii koobaad maanta la guda galnay waxaan dhageysanay maanta warbixin ka dhageysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hanaan doorasho la kala doorto ama lagu dul shaqeeyo maanta ay nala wadaageen guddigii farsamada welina shaqadii way socotaa guddiguna waa ku jiraan hawshoodii balse maanta intaasay nala wadaageen caawana shirkii wajigiisii koobaad ayaa noo furmay oo aan guda galnay doodihii iyo wada hadalladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ee nala wadaageen runtii guddiga waa u mahad celinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay u soo dadaaleen talooyin bay soo urursheen meel bay soo gaarsiiyeen wada hadalka caawa ah si guud mabdiyan waa isku afgarannay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u bannaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inayna soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii ilaa yidhaahdo ugu dambayn waxaan rabaa in halkaan uga diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu guulaysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaan leenahay walaalayaal shirkan insha Allah guul ku dhamaanaya safgarada ku dhamaanaya dalkuna hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu gali doonaa insha Allah taala taasna kalsooni buuxda ku qabnaa waana ku kalsoonahay in sax u dhacayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo saaxiibada beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay u Soomaali u garab taagan yihiin oo dowladda Soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan halka uga mahad celiyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan waliba si gaar ah doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul laga gaaro noo siinayay waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaanan wax haba yaraatee keeni kara in ay dib u dhacdo ama waqtiga qaaliga ah Soomaali laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa waxaan rabnaa inaan meesha ka sii wadno guulna u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan insha Allah waxaan leeyahay kale gobasha waxaa dhigay reer Galmudug walaal kasta oo wax qabi kara gobasha reer Galmudug ku taxgaliyo qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaan ka bari karno ka qanci karno walaalkii qaba ama mas'uulkii qaba سادرتد وش هلا قدري هلا اللي يمادو هذه هذا ما تنتهين بها صحافة ما تنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته